lacag $15 baan ku siiyey gaarigan 24 saacadood baad iga kareysay markaan iyo waxaad sabtaa $10 baan ku soo diray ilaa inta bisha ka hadhay isugu saaxiib ay $10 ay ugu qaanaminay niyo anaga niyo $10 niyo nina ay ugu qaanabin niyo hay ma bla discipline baad horta niyo waxaan yaan qof weyn oo aqlaan lahayn wax niyo waxaan niyo حلو niyo mid halkan oo aan saaxiibnay baan niyo gaari ka kareysay niyo bilkii hor niyo هي kadib $10 baan niyo siiyay niyo هي $10 baad uu ninkii igu lahaa niyo هي niyo $10 bay markay la bil niyo ugu xijiyay niyo ما تمر بالدم كود بس عودنا كان niyo haan niyo wali ما حد يقول ما صاحبك انا تبغى دون خاب لها hay saaxiibkay baa tood nin waxaan igala weyn baa taanu ninaan $10 iyo وروحها كبح انا بحل لها ودر saaxiib لها ma tii saaxiib انا ودر لها شيء لما بيسين ما saaxiib aniga niyo hawsha ilaa britolay waxay iga yaraa soo ما dhacay صاحب اي شيء كان نفط سكور ونا صاحب لما كل شيء 393 393 40 40 78 78 nin saaxiib waxa igala balaaran baa too on kala xishooday saaxiib ورانا ودر راديو ya saaxiib دو اريك كان دنيا كو شيغ مرغير كلا هيستينيو waan gar saaxiib ادو صاحب انا دغري قيب قادته waan gar saaxiib ka waan inaad horta wax iga qarisan ma yahayn ورني ود سكه تقانين wax iska qariyahay moogtay waan gartay niyo inay muddo badan soo wada sheekaysanayni waan gartay doonaya niyo inaan meherka u sheegto niyo waan ismehersano waan farxad labe maxaad loo qarsan saaxiib niyo walaahi ma garan karo niyo way marka waxaan doonayaa imika inoo socoto markay noo timaado hadduu ilaahay ka dhigo waan gartay markay noo tugno insha allah waan gartay hadda la yare iga khaldan waan gartay baan doonayaa saaxiib inaad iga saxdo waan gartay niyo inaad hawsha ila garab gashaan doonayaa saaxiib hawsha horta waan kula garab taagani mar kastana Sax. saaxiibkaana waan hadalkaa khaldamay iska daayay arooskaaga ninka qaban qaabinaya anigu iyo gacantiisa ku xidhaya niyo ma garad saaxiib laba nin oo waxay igala anigu adduunka igala qaadisanta lacagta taala saaxiib waa nin saaxiibkay ugu qaadiyaa saaxiib ya saaxiib hawshaan oo dhamaynaa hawsha saaxiib waan dhamayna hadduu ilaahay ka dhigo Dhamaynaa waana saaxiib. inoo soo socotaa insha Allah kowdhe So inoo ma imanayso? inoo imanayso niyo laakiin inay diidayso u malayn maayo anaa saaxiib yara baqaya Hay, oo inta muddo badan ma la hadna sheekaysanay intaan anaa kaa saaraya way saaxiib صاحب أنيجين مسكو إدلان كرا فرحت كلا أبابولا لما تيرو أبالكي صاحب أنيجين مسكو إدلان كرا فرحت كلا أبابولا لما تيرو أبالكي فرحت كولا أبابولا لما ترى أبالكي صاحب كل بأقول قالت كاجا أمسي ما بي إيمانه عن لحظة بل إني صوص عذاب هلو ميت صور دودي نواني مدانا wax qadar ma bal taagane hortiisa taagantay xaqa shaqada way بل هي صور دايرين كسوية تاجن هاي ay waana ma markaan uu leeyahay cajiib qalbi uu yeeshay لكن قلب واي واي وصعت اليوم خير يسمونك والله ما شاء الله يور حافظ يفهم واطي انت كل شيء واو يوني تدي شيء مساحة مينتها ما شاء الله هاي وينته هو ما شاء الله قاعد ايام بارحها
kana waxaa la dhahaa xabiib Ismaaciil baa la dhahaa waddanka kaliya saaxiibada iga dhow garabkayga durfo badan aan ka soo wada dabaalanay markaa dee intaan ku sheegay inta adigana kaaga sheegin jiray intaan saaxiibada ahay waan gartay ما شاء الله نينتنا وين نروح بضنبو ما شاء الله ما شاء الله يا أيوة إسماعيل وبرشة ونكسن حبي ودي حد طلب له هارب بنكو شيء يعني بل يشيك ومن حسين أنا والله حن حي شيء ورنتها نايم إنه جرت إنه وحنش أنا لكن إنه جرت فريسنا ونيو هذا هنكو هيو أما وش هنكو هيو نقوله وده ونيو صاحب قالي ملها inaynu inata wadadan laamidan fadhiisano malaha way nagala qurux badnaay baan isleeyahay inaynu inata laamidan fadhiisano runtii waa laami wadada nagu maray laakiin arrinka ayaa iga weyn meeshan aan doonayo inaan fadhiisano marka bal yaan la yar fadhiisana jeclaan lahaa wallahi saaxib dee ismilihiye bal inata inaad halkan kula hadasho miyaani ka qurux badnayn talo maanta sibaad u naxsantahay ma wax jacaylkii ka baxsan bad yahaysaan kulley haayo jacaylkii baan dee isla habto haysay ولا سوار قراعي سوى قف الله ساميا ما قرتي حاتر مركا يعني تيني كان صاحب كي نسيب سكير سلوك سنتينو وانير يابان ايبا والله يو انا قلنا حنسلاوه إنا تنقر واحدة بدان لما انت يعني كوبس يجيب با يكون هذا الله مركا كشيسو عاد كقبتها تقول إني أو الكواحي إن ده واحد يركان بالكنو جويان بالليل مركا إنا سيدان وقروح بدانو إلهي مقرانسا ودمي قروح يضد نمبا باتو وعن شرندي وينتا نمانتا يعني كابتي جنبه صاحب كلا شيكيستو أو حرير لا نيو صاحب ما صاحب كوالله شيكيستا لكن تعطنا حنركيا إني إسكو قلمي لبدينه واي السباد waxay niga yar dhex taagan yihiin oo ma garanaysa marka halka waxaan iska jeclaystay aniguna maadaama hawshaasi ay adag tahay inaan hawsha galo ee aan garanaysa bal ayaan aan ka helay hawsheeda inaan galay bal ka sheekayado والقلب فاتي ولا ما حصلش هي way وانا اسكو فرحسن لبديد marka waa qalad fahmay maniga qalad fahmay hadda waxaan indhahan arkay indha qalad fahmay ma hay waa indho ma garanaysa wax reality ah way laga wacan adigu wada saaxiibka ii bartay in dimaashada ahay inaad imka tiraalo markaaga ii sheeg laga qurux badan waa laga qurux badan yahay laakiin waxaan arkay saaxiibkay inuu isku faraxsanayn basama aanay waxba dhexdiina aanay oolin حبيبي حاول يرحل لها هذا waxaan doonayaa arrinkii aan ku sheego moogtay hadii la ka dhigo arrinkii aan ku hayay in kaga dhaco horta arinku haba dambeeyay ninkan adiga saaxiibkaaba ninkan ha saaxiibkay marka saaxiibka waxaan igula hadlayaa maxay hadallo wadan igula hadlayo uma bogin saaxiibkay ha saaxiibka saaxiib waxaad sameynaysaa maxay tahay waxaan aad ku dhaqaaqaysaa صاحب حمان سمينه maxay hadda weeyay حمان سمين صاحبه waa maxay saaxiib waxay sheegaysaa dimaashida صاحب دمشق waxay sheegayso دمشقيني oo adiga دمشق waxaan dhexdiina ka arkay wax naga dhaxartay waa maxay waxaan naga dhaxarkay waxa weeyaan دمشق saaxiibina aan ku qalmin saadaraadida noocan ana isku wadaba sabab tiraahdo inta isku ma qalataan inta madamac baa ka galay saaxiibna damac bay galaha waan ka helay saaxiib runta fiican saaxiib natinin aadi ma saaxiib hadii saatay saaxiibtimeeda inta ka weynaatay namar walaal ayaan in badan ma soo wada sheegsanay dabcan inta badnaa soo wada sheegsanay inaan ka baysana gaarkiisa ku jeclaa marka maanta waxaan go'aansaday in saaxiibkay iyo adiguba aad noqotaan dad ku midooba jacaylka marka khayr iyo gabadhida inta tiinaya كلي دي فهد سيدا oo ku sheegan weeyaan xiriirka nin baan jeclaystay inaynu sii wadno aynu dee halkiisa ka sii amba qaadno yadigana talo soo kulay xiriirkii waxaad ka hadlaysaa waa maxay dee kale xiriirkan aan ka hadlay anigu waa ka uu fahad ku sheegay muddadana jiray aan jeclahayna dee inaan ka miro dhalno aynu hawsheeda galno maadaama dee uu fahad tagayna inaan anigu dee hawsheedii aan wadan karayo waan waxaad ka shaqeysaa qof garmay ku sidana kama filayna saaxiibka ku samaysay waa salaam yeelay والله دقائق من هذا الشيء يا والله
shit niyo saaxiibkaynu sidaas sameeya ma ahayn inta in lambarkayga ay siiyo unbu aniga ka dhamaysan lahaa niyo waxaan muxuu ahaa niyo inuu siiyo lambarkun baa niyo ana dhamaysan lahaa niyo muxuu ahaa niyo isaga khaladkaa sameeyey lambarka hadduu siin lahaa hawshaana gali lahaa dhamaysan lahaa hawsheeda sheegtay saaxiibkayna waa sheegay Are you all my personal ونيو دعدعي سمان تو حاجة كاركي حاكو هلانيو مسيدي كلام أنتنيو warniyow meeniyow ninkii aanu saaxiibada ahayn rag la dhex baxay Ismaaciil عندي إسماعيل ayaa naagtaas inantaas lahaa maxarsabaniyow عامل قاعد صاحبها يدين إسماعيل haaniyow ninkii baa inantii markaan isbarayeen isku geeyey هاي ayuu baa inantii muga damcaynayow قبل ما تقولين زين ayay heedo daa meeteen gursinayay heedaan shaqaynayow anay intaan iyaga isaga isbaray baan saaxiib sageeyay aniga saaxiib waxa imika sameeyay saaxiib ma garamayno inaga dhaqaysaa هاي دي تسميد أنا قاعد كرم معي إنك إسماعيل هو قبل دوني سنة كورسيتي كده بلاوي والله لا صاحب ده واحد رماي هو حاسو حتى نيجي هو حاسو أصحابه كده بحدد كل دي هو قاضي وهاي إنك هسي نقدر صاحب هذا كيس نقدر إنه يورم حاجة صادو والله أنا بقوى وفي عنا يساعد kusoo dhawaada brother span magacaygu waa Ismaaciil Cabdikariin Cabdilaahi fariintaanu gudbidnayna ama message-kaan maanta wadnaa waa noloshu maaha mid kaliya ku qancinaysa kusoo dhawow brother span magacaygu waa Aadan Ibraahin message-kaan gudbinayna waxa weeyaan isku day mar walba inaad qanciso dadka kugu xeeran sida saaxiibtinimada walaaltinimada iyo cid kastoo adiga ku dhow nabadi korkiina ha ahaato magacaygu waa Fahad Shakib Saciid kusoo dhawaada kooxda brother span maanta message-kan gudbinayna waa doorka uu saaxiibku xumo ku leeyahay nolosha saaxiibka wanaagsan nabadi korkiina ha ahaato kusoo dhawow brother span magacaygu waa Guulad Xuseen Ibraahin message-kan maanta gudbinayna waa hadhaawicin qalbigu kalsoon cid kastu yahayba kusoo dhawaada brother span